kulan lagu soo dhaweynayo xafladda sanad guurada madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan laftigareen ayaa maanta waxay ka dhacday degmada Wallaweyn. Kulankan ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha degmada Wallaweyn mudane Maxamed Siido Cabdiraxmaan. Sidoo kale waxaa kulankan lagu soo dhaweynayay in gudoomiyaha cusub ee degmada Wallaweyn kaas oo magacaabi doona gordhow madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan laftigareen ay bulshada reer Wallaweyn soo dhaweyn doonaan. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada diinka, dhalinyarada, saxaafadda, madaxda maamulka, waxgaradka, odayaasha iyo nabadoonnada degmada. Waxaa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay nabadoon Abuukar Maamo nabadoon Awdhi wuxuuna yiri anoo aha nabadoon erna qaas ahaan saddex gamaas ana aha shan aleemina wakiil oo dhikiti haddii una maqan adi afhayeenkaana ita sah iyo qalad walaagii suubiyada afkaana ka waran iyo dheen hadda odshoon siin gudbiyay salaamantaan waay hadda waa guud ahaan Wallaweyn dhan salaan qaas indiraane dawladda koonfur galbeed meel kasta ii roogto in ka horooyo mudane madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftigareen mudane madaxweyne reer daafeed way keliyaan markii in ka horooyto hambalyo ayaa keliyaan inkastoo oo hadda hal maalin iyo meelahaas dhiminto hambalyada sanad guurida oo sanadka madaxweynaha wadanka koonfur galbeed adeen eto walqabadka muuqada umada dhan isla aragoo hayto sanadkan sanad shayna way lana ilaahay samo iyo barbash iyo barwaaqo ilaahay ki daarsiyo ki koonfur galbeed walan qabadayn ilaahay ha koo dhiko degmada Wallaweyn maamulka cusub oo soo socda daafeed oo la sheegi oo la ka dhabaaqi daafeed dhan walaa ku kii geerada idaacad ku warami warkaas iyo dawa socda warkaan ninka hadda degmada la soo magacaabo mudane madaxweyne way ku codsadaaneen malaaq Siido Maadow Muuse Muudey waa malaaq shan aleemo malaaq guud shan aleemo waaye laakiin ninkii fada walaagii fada uu isku sheego shan aleemo meel Siido in ka jirna waa hunguri asbi in ka jirna in dhamaan waaye mudane madaxweyne marka way ku codsadaaneen Siido Maadow Muuse malaaq shan aleemo haddii uu say ilaahay ku dhiki ilaahay in doori ani ma ku qaado karo bini'aadin kale ma ku qaado karo ilaaha in doori ninka degmada aqoon-yahanka u soo wado walgaradka u soo wado ninkaas astaadiis horeyaan aragni degmada inay walan qabadaa gareedo in shaqeeyay warama codka degmada Wallaweyn nabadoon Awdhiina sideen ka dhaqsiyaha badan inay maamulkaas noo dajijiido ko codsadaane kaalinta lamaad ana ko codsadaan waa itaa dadkan warkan ani ku dhamaysado haaye kaalinta lamaad ko codsadaan waa itaa golaha guurtada sideen ka dhaqsiyaha badan adniga suubi lahayti in ka dhawaaq lahayti mudane madaxweyne taasa ko sugaane shan aleemo inta kulmun shan aleemo wal shaldhim ma jira nabadoonadiye waxa garadse aqoon-yahanshe ururka habeenka walnin shaldhim ma jiro way kiinka ma hadilyaane waana kiinka hambaliyo yaane shaqada adagayga hayto in ilaahay garab ka gado adi malaag Siido Maadow Muuse waxigeyga maragta isan siisa fahanteen hel hum isan dhahayo wayse siisa fahantaan una taasad ka taageersagna waa shan caleemo shan qabiil oo ii naftirshe oo diyo isku qaadadaasu way fadaanay xildhibaanada oo hadda la xoloohayo shantii ool hore haysini in walninka ziyaadida maahane in wal inoo dhingne ku codsadaan dadka maamulka degmada Soonxuloohayo aad iyo aad boqolkiiba boqol iyo iska dhawaayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu shan caleemada aniga aan ahna shantiina caleemood ina wax nagu dirtid ma ina wax naga dhintid marabna gudoomiye waxa aad iyo aad awilba ugu baahanahay waxa maanta adiga noo soo go'aamis go'aankaaga aan ku qanacsanahay waxaa ugu dambeyn goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Wallaweyn mudane Maxamed Siido Cabdiraxmaan mudane madaxweyne hambalyo sanad guurida koowaad sanadkan sanad shayna nabadgelyo caafimaad iyo barwaaqo in ilaahay darsi iyo rajayaan mid kale qodobka kale una had inta roogsan ma ita in una kiin muujina taageerada degmada Wallaweyn in qabto dawlad in qabto gaar ahaan dawladan koonfur galbeed in kiin muujina iyo way mid kale taa waxa way mayl dhiso haya golihii shacabka ee koonfur galbeed baarlamaankii madaxweynihii hore markii 95 jirtii
oo dastuurkii ka qoranaya oo koonfur galbeed 5 xibnooda noo ballan qaaday kudibna 54 xildhibaan iyo ka daray 54tii hal xab malnoo siina 95 hor unkii lahayna ilay 40 sano iska dhamaysana mudan madaxweyne maadaama hadda tii hore soo dhamaatay oo 54taas la noo qadiyay 95 oo un 5 xibnood unkii lahayna wiliba 6 nabadoon waaye deegaanka Wallaweyn 5 caleemood 2 nabadoon oo beesha irdha beesha barbaar oo hal beesha jumbulul oo hal beesha hiifig oo hal beesha hubeer oo hal 6daas nabadoon iyo way may ku codsadaane halkii lixaad in adinka darti iyo ku codsadaane 5 hadda ahayti kii lixaad in adinka darto iyo ku codsadaane mid kale taw may aad in jeclaana bulshada iyo odayaalka hadda ka nageena in wal alla walaagi aad isku bahan adi iyo malaaqa guud ee beelaha 5 caleemood malaaq siidow maadow muuse in wal alla walaagi isin go'aan suunka baho oo magacaabis degmada Wallaweyn in ay soo dhawaayeen ee shacabka Wallaweyn hadda kii muujiyeen ano hadda gudoomiyihii degmada Wallaweyn may aad iyo aad aan inka faraxsan yaa go'aanka isin suunka baho in aan qaadid oo aqbalo cabdiqani maxamed xasan TV-ga koonfur galbeed Wallaweyn